Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa soo afjaray dhowr cisho uu safar ku joogay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Inta uu joogay ra'iisul wasaaruhu wuxuu dhagax dhigay dhowr mashruuc waxaana loo xaqiijiyay in mashaariicda qaar ay qarash u hayso dowladda federaalka halka qaarna loo qaraab tagi doono. waxaa jiro warar sheegaya in qaar ka mid ah mashaariicdan laga soo leexiyay maamulka Puntland oo isaga xiriirka wada shaqeynta u jaray dowladda federaalka ee Soomaaliya. qoraal uu maanta faafiyay xafiiska ra'iisul wasaare Xamse ayaa lagu sheegay in dastuurka lagu muujin doono aqoonsiga qaatumo, taasi oo dad badan fahansiisay in shaqada aqoonsiga ay weli ay qabyo tahay. sidoo kale Xamse ma sheegin dastuurka ay qaatumo ku biiri doonto inuu yahay midka ay dowladda sameysay ama inuu yahay midka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ku noqday Xamsena loo dhaariyay balse hadda ay ku dhaqankiisa ay diidan yihiin. haddaba aan soo koobno maxay qaatumo ka faa'iiday safarka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. mashaariic sida la filayay ra'iisul wasaare Xamse ayaa dhagax dhigay dhowr mashruuc oo laga fulin doono magaalada Laascaanood. waxaa ku jirto halka ay noqon doonto madaxtooyada maamulka qaatumo. in lagu casuumay shirka golaha wadatashiga qaran. inkastoo aan caddeyn inuu qabsoomi doono shirka golaha wadatashiga qaran ee la iclaamiyay inuu dhici doono horaanta bisha soo socota ee May, haddana haddii uu qabsoomo qaatumo waxay haysataa casuumaada. ma cadda in shirkan ay ku eg tahay ama inay noqon doonto xubin joogto ah maadaama uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud habeenkii ciida sheegay in la qabanayo shir loo dhan yahay oo ay cid walba ay ka soo qayb gali doonto. balan aqoonsi ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wuxuu baarlamaanka qaatumo ka hor sheegay in hogaamiyaha maamulkaasi ninka la yiraahdo Firdhiye in shirka soo socda ee golaha wadatashiga qaran ee uu ku casuuman yahay halkaasna ay qaatumo ka sheegan doonto waxa ay rabto. isla habeenkii xafladda ka dhacday magaalada Laascaanood wuxuu Xamse sheegay inay qaatumo tahay maamul hoos yimaada dowladda federaalka isagoo soo xiganayo warqadii wasiir fiqi ee 2023 laakiin aqoonsi ma sheegin. mar kale qoraal uu maanta xafiiska ra'iisul wasaare Xamse uu faafiyay waxaa lagu sheegay inay go'aansadeen in dowlad ahaan in ay qaatumo loo aqoonsado maamul goboleeda balse meesha lagu dhameystiri doono shirweyne dhici doono iyo dastuurka dowladda federaalka sidaa awgeed qaatumo waxay heshay balan aqoonsi laakiin waxay sugaysaa dhameystirka dastuur sida fariinta Xamse ka muuqata. Xamse isagoo wuxuu kala soo laabtay magaalada Laascaanood shacbiyada koowaad ee uu ka helay deegaan uu matalo, taasi oo laga yaabo in dhowr kabileed ee soo socota uu qaato nafis siyaasadeeda. maadaama uu dhowr sano wajahayay Xamse dhaleecayn kaga imaanaysa beesha uu ku matalo saami qaybsiga 4.5 kuwaas oo ku haysta matalaad xumo iyo inuu awoodda xafiiskiisa ku wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan ilaa hadda ka hadlin arrintan, iyadoo markii dib loo raaco aasaaska maamul goboleedyada aad fahmi kartid kaalinta madaxweynaha iyo mid baarlamaanka. gaar ahaan beesha degto gobolka Sanaag ee dhawaan sheegtay inay dhisatay maamul la yiraahdo Maaqir State ayaa weli waxba ka dhihin arrintan cusub. haddaba sidee u aragtaa adiga?